بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي mahadle سبحانه وتعالى waxaanu maanta oo bisha 12 tahay bishii July Ilaahay noo suurta geliyay inaanu wada saxano oo isku raacno qodobadii hor taagnaa ee u baahnaa si doorasho wanaagsan oo xalaal inoogu dhacdo in meesha laga saaro oo lagu heshiiyo muranka keeni jiray ayaan maanta ka heshiinay alxamdulillaah ilaahay baa leh subxaanahu wa tacaala ana waxaanu ku caan baxnay ummad waxay iska rafatay marka u dambaysa danta ummadda ku midooba marka waxa leeyahay shacabka reer Soomaaliland waxaan idinku boorinayaa inaad u diyaar garoodaan doorasho xaq ah oo xalaal ah ilaahay billahi tacaala dad wanaagsan oo iimaan leh oo amaanada xijin kara aynu soo dooranaa oo noo keentaan si aan u sharaxno marka maanta waxa weeye waa cusub ay noo bariyay waa aragtan saddexda xusbi ee qaran oo gumcaa isqabsaday waxaan noo tala aan ku gaadhnay inaan sida wada jirka ah aanu doorashadii uga howlgalnaa si ay nagu dhici lahayd doorasho nabadgelyo oo xor oo xalaal ah marka qof kasta reer Soomaaliland waxaan leenahay xil baa ku saaran nabadgelyo la ilaaliyo diiwaangelinta loo diyaar garooba komishinkana waxaan ugu ducaynay ilaahay xilka ku asturo ilkaan loo dhiibay ilaahay ku asturo oo kuwii guulka gaara iyo magac ku helay ilaahay ka dhigo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta waxaa saddexda xisbi qaran soo afjareen murankii inta badan ka taagnaa qabashada doorashooyinka doorashada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka iyagoo muddo dheer hadda wada hadal ku jiray waxaana isku waafaqeen saddexda xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga hor qaado doorashadiina insha Allah inoo qabsanto 2020 labadii doorasho isku sidkan waxaan rajaynaynaa si dhaqsaana in jadwalkii doorashooyinka commissionku uu soo saaro insha Allah marka shacbiga waxaan leenahay muddo badan ma sugaysan doorasho haday wakiilo tahay iyo haday deegaan tahayba aynu diyaar garowno gacmaha isu qabsano doorashada dhammaan wixii ka soo baxa ee caqabado cusubna aynu geesiga soo wada jeedno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بام هذله وحمانت دمانتين ما قرن كسمانة دمانتي فرحين وآه إن خلافك مدة درس وجي تمي حسيني قبصومي الدورشين كسمالان قولها وكيل الله يقولها دجانك أنا مانتا أو بيشو تهاي بيشو تضبط لبية طبعا تهاي سنة كلامكم إلا بعتنك ومالنا حدا صاف شرمي ونبدل شيء صدق حسب الجارين شيء كي هراء تضبط العتنك بيشي لبعض للجاري waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa in si wanaagsan hawshaasi muddo wada hadal dheer kadib in la soo gunaanaday saddex xisbi qaranna isku afkarteen in doorashadii loo dareero loona diyaar garoobo komishanka cusubna uu soo diyaariyo jadwalkii doorashada waqtiga ugu suurtagalsan ee muddada ugu gaaban sanadka 2020 ka ah waxaan aad iyo aad runtii aan leenahay ummadda reer Soomaaliland ha u diyaar garoodo doorasho xor iyo xalaal ah iyo diiwaangelinta oo muddo kooban ka horeyn doonta insha Allah iyadoo dhammaanteen tahay xilna waa saaran inaan qarankan doorashada wuxuu ku iibsanayaa qaranka Soomaaliland ama maanta magac iyo martabad iyo sharaf ku leeyahay doorashooyinka dimuqraadiga ah ee inta dhowr sanadood Soomaaliya jirtay أنا كده عند ربنا ولا اعتراف سيهاي ما أنت أنا وحالك مجعين
ku meel maraa ama adduunyadu inagu majeerataa waa nabadgelyada iyo doorashooyinka dimuqraadiga dalka dhaca marka waxaan leenahay maanta golayaasha muddo dhaafka noqday doorashadoodii ha loo diyaargaroobo inagoo ku xisaabtamayna danta guud aan wada leenahay ma ku xisaabtamayna oo nin walba uu ka tago dantiisa ee gaarka ah markay teena guud hagaagto iyo teena gaarkina hagaagaysa marka waxaan leenahay shacabka reer Somaliland maanta laga bilaabo nin walba dantiisa gaarka meelaha iska dhigo hana u diyaargaroobo inuu qarankan maanta doorasho xor oo xalaal ka dhacdo oo si nabad u dhacdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.